إله بقى ما هذا اللي وواحد فرحه فإذا ما أنت كده علي حالتنا كسرنا يوم ما أنت وحن كسرنا هاي وحتى ما هذا لا إلهي كسكون مدحوينها الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaan maqli jiray siyaadowna daadii maanta khayrowna daadii baa ka dhacday ilaahay baa mahadale khayra mahadale waxa weeyaan weligay kama soo baxeen guddi iga soo saaray iyagaana iska lahaa maanta haddii labada golena waa salaabaynaa waxaan leeyahay calan aad lahayd iyo dal shisheeye waa cudur dareen culus ku joogiyo cabsi weeye ma og tahay cagta kii dul saarow inay tahay cadaabtii idinkama qarsoonee ciid iyo dhulkaagii aad ku caalamaashide calool furo ku soo noqon leh war ilaah baa mahadale waxaa mahadda iska leh konsulka soomaaliya u fadhiya etoobiya asababa maxamed cali nuur iyo ninka aniga qaldamay safiirka soomaaliya u fadhiya leeyahay etoobiya maxamed cali nuur iyo qunsulka guud ee Itoobiya u jooga sababa mudane Cabdullaahi Xaaji Warfaa oo hadii waxay qabteen waxaan hadda gaadi karaayeen markii dawladii dhacday kadib maxamed siyaad bare kadib cid maanta xabsi ku booqata Soomaali ku jirta xabsi oo dal shisheeye joogta ragii ugu horreeyay bay ahaayeen xabsi intay lugahooda ku tageen soo indheeyay xaaladda dadkaas markay ii yimaadeen iga arkeen iga naxeenna hadda waxa ay arkeen ay u gudbiyeen madaxda Soomaaliya kuwaasoo amar ku bixiyay in si dhaqso ah halkan laga soo baxsho waxaan ka baqayaa oo ka baryayaa ilaahay in dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya cilaaqaadkay dhaxmaray sida ay u fududeysay dawladda Itoobiya aad baan ugu mahadnaqayaa waxa taal oo kale aan ka codsanayaa والإهلال كله الصومالي ده وحبا قرب أيقنا إلى حرنا كل حرنا ترجية السامة فهي قالت إن أيقنا دولة إثيوبيا أي سيدا عنك أي يشرف يسود ديسي كوا كله يسود ديسو يدو علاقات كلامات الفيرينيكا يجعل كلامات الإسكو كمان نظنتي وحنا هي أمانة أنت لك وح إسكالة ما هداسي مدحويني فرماتشو إيوه حسن على خيره waxaa mahadtaas ku celinayaa labada gole ee wasiirada iyo xildhibaanada Soomaaliya waxaa kaalinta ugu weyn aan ka siinayaa halkan aan iloobi karin bahda saxaafadda Soomaaliya oo dhuuxii lafaha ay dhalaaliyay qalbigayga farxad geliyo kuwaasoo ah kuwa ka cabanayay dhibaatooyinka iyo dambiyada aan geysanin ee lagu ogay taasina ay ka hadlayeen xaaladda aan ku suganahay taasina ay keentay in madaxda qaranka ay dhageystaan waxna ka qabtaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin waxaan mahad gaar u jeedinayaa ninka la yiraahdo xasan maxamed axmed oo xasan turki loo yaqaano oo safiirkii Soomaaliya Turkiga u joogi jiray iyo axmed abarone iyo cusmaan yuusuf caliyowmire oo reer Britain ah oo ayagana intaan xibnaa kaalin weyn ka qaadanayay samata bixinta xaaladdeeda waxaan kaloo ambaliyada u dirayaa maxamed amiin cadow oo iswadan jooga oo isaguna ah nin isagu aad uga cabanayay dhibaatadiisa waxaan intaan xabsiga ku jiray mar walba toddobaadkiiba mar i booqan jiray wiil dhalinyaro ah oo aan isgaranaynin oo asaga un jacayl oo ii qabay igu imaanayay oo la yiraahdo cabdicasiis cabdullaahi la yiraahdo biimaalow oo isagu ah xogeyaha guud ee Somali community absaba warninkaasi waxaan leeyahay saaxiib mahad gaar ilaha le adiga iskale adiga iyo gabadha la yiraahdo fartuun iyo gabadha la yiraahdo fardowsa xagaf fardowsa maxamed baa la yiraahdaa laakiin fardowsa xagaafay kuma gacdaysaa waxaan leeyahay fardowsa xagaafay iyo fartuun maxamed faa'iidadiina waa helaysaan sida uu cabdicasiis u helay anigoo dib ugu noqonaya wadaniga la yiraahdo hadee Cabdullaahi Xaaji Warfaa qunsulkii guud oo amarka safiirka raacay maxaa callo weliba isla socdaan Ismaaciil aadan Ibraahim sekretariga aad baan ugu farxay markii noogu yimaadeen xabsiga warqadar dhacay canaan ma laha qaladna waa la sixi jiray war sida qaladka loo saxay kuwa kalena loo soo saxo
حوي أرنتان أرن ما أنت عن ما هذا السنين بهذا وزارة أرمها الدبدة الصومالية يوسف جراد كوعيين دي سبا إنجنيرك عبد القادر يرد بدنوا هذا أي كم الدين متقنا مسؤولين كالصومالي وزير كورفافنت يريز وكم جاي خديجة محمد ديبيه وزير السبورت لأن يرضي هواك فوقها هذا واحد عليه wax kasta bilow dhamaad bay leeyihiin anigu waxaan inta ku soo gabagabeynaya xanuunka hayo xagga maskaxda dadkii waqti ma hayo in mahad gaar ah idin celiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay waxaan leeyahay Soomaaliyay ilaahay baa soo samata bixiyay xabsiga aan ku xukunnay anigoo waxba galabsan iyo sida leeyahay soo fududeeyay ee dawladdan maanta jirta ay wax uga qabatay dhibaatooyinka Soomaalida loo geysan karo amaba ku xiran xabsiyada adduunka hadda waxaan mahaddeeda siinaynaa xasan cali khayri iyo farmaajo balse farmaajo waxaan leeyahay jiro xasan cali khayrina waa ku sheegay khayru ridaadii baa marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin farxadeed waa maalin calankaygii iyo ciidaydii aan joogo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.